madaxweyne farmaajo oo jamaahiirta nabadii nolol ugu baaqay inay dagaalka galaan shaabna cirib tiraan qoryaha qaataan waa waray war la yaab leh iyo madaxweyne farmaajo oo dhiirigelin cajiiba u soo jeediyay dhalinyarada nabad iyo nolol ee taageerada weyn u haya kacdoon ka bilowday gudaha dalka iyo dibadiisa shacabkii oo qoryaha qaatay iyo madaxweyne farmaajo oo sheegay inuu garab ku siinayo ciidamada ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeed sidii al-shabaab cirib tiri lahaayeen warbixin cajiib oo idinkula wadaagi doona xogta war weyn uu soo saaray madaxweyne farmaajo baaq u jeediyay taageerayaasha jamaahiirta nabad iyo nolol iyo dagaalka al-shabaab oo markan waji kala yeeshay ee shargareeyo ku faafiyay dunida meelba ku tooran muuqaalka qaybta faalaha ugu wadaag aragtidiina way hagaag ku bilaabo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo saaray baaq si weyn shacabka Soomaaliyeed u wada gaaray jamaahiirta nabad iyo nolol ayuu ugu baaqay inay qaataan go'aan degdeg ah inay u diyaar garoobaan inay dagaal adag la galaan kooxda al-shabaab oo hadda dagaal adag lagula jiro isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay u diyaar garoobeen inay weerarada ku qaadaan madaxweyne farmaajo ayaa jamaahiirta nabad iyo nolol u soo jeediyay inay si degdeg ah dagaalka lagula jiro al-shabaab uga qayb qaataan isla markaana uu isagu garab ku siinayo arrintaasi sidii u dhaqan gali lahayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale u soo jeediyay jamaahiirta nabad iyo nolol in ay garab siiyaan ciidamada ammaanka iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee hadda jirta arrintaasi oo muujiyay sida madaxweyne farmaajo ay uga go'an tahay in al-shabaab lala dagaalamo ayna u tahay muhiim in shacabka Soomaaliyeed arrintaas ay wax badan ka ogaadaan si looga takhaluso kooxda al-shabaab waxa ay aaminsan yihiin mas'uuliyiinta dowladda in dagaalkan uu noqon karo mid ay shacabka Soomaaliyeed ka qayb qaataan haddii aan ahay hogaamiyaha jamaahiirta nabad iyo nolol waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada taageersan mabda'eena in ujeedada aan leenahay kaliya ay tahay al-shabaab isla markaana dowladdan aan kula midoobi karno midaas hadda ay shacabkeenu dhaqaaqeen ciidankeenu way diyaar garoobeen waxaana diyaar u nahay in aan anagu furanta tagno ee idinkuna naweheliya oo kaalaya dagaalka nala gala ayuu yidhi waxa uu soo saaray baaqa degdega oo ka aadan in hore loo dhaqaaqo oo arrintan si degdega loo soo gabagabeeyay arrintaasi oo sidoo kale bannaanka keentay sida xogaha amni ee muujinayaan in shacabka Soomaaliyeed ay dagaalka toos u galeen baraha bulshada ay hadalka madaxweyne farmaajo qabsaday iyadoo ay dhalinyaradu bilaabeen kacdoon dhinaca baraha bulshada iyagoo si toos iyo si dadbanba baraha bulshada oo la xoogan uga bilaabay si looga dhabeeyo hadalka madaxweynaha al-shabaab weerarka lagu qaadana aan ilaa iyo gabagabadooda laga soo laaban iyadoo ay taasi diidiilo geliday ciidamada qalabka sida sidoo kale saraakiisha ciidamada oo ku farxay hadalka madaxweyne farmaajo iyo dhiirigelinta uu sameeyay dhalinyarada ayay sheegeen in arrintan ay tahay hoggaan waxa looga baahan yahay waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan uu furunta dagaalka u socdo loona baahan in ay shacabka Soomaaliyeed soo qaataan biyaha hooyadu ay ciidanka badarka ka daba qaado dhalinyarada kii qori qaadi karaa uu qorigiisa qaato kii ciidanka haraadka iyo biyaha kala daba lugayn karaana uu sidoo kale saadka ciidanka hore u soo qaato midkii darawalhow bixi gaarigaaga si uu ugu adeego qaranka maanta waa maalin la isu dhaarsaday mana ahan maalintii aanu fadhin lahayn ee dagaalka aan galno ayuu yiri madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sheegay xogaan qaybta falaan ugu wadaag aragtidiina tan iyo kulantada marna nabadgeliyo hadle oo maanta halkan isku keenay waxaan idin leeyahay horta hambaliyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo iska kiin maxaan ku difaaci waayeen markaad meesha timaadeen waa carareen Soomaha waa dhaqankii leeyihiin marka waxa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen sibiid iyo caanool aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeen aad ka difaacdaan waa yeelaysan Soomaha waa ka difaacaysan Soomaha marka waxa la rabaa inaad soo jeedaan inay seexan inaad meesha joogan aad ugu tagtaan shacabkiina inaad difaacdaan waa fulayo
waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay carruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo dhiiranaan inaad la hortaagan tihiin waxaan ugu tegaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taagannaha ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo booqanaynaa ciidamo kale idinku soo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma u dulqaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku rahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno idinkaa la rabaa inaad hortaagnaataan inaad daba gashaan inaad eridaan meel alle meeshay joogaan aad ugu gashaan soo ballan ilaahay maaha waxaa la rabaa inaad adkaysataan dagaalku wax kale ma aha qof walba qofku ka adkaysi badan yahay hal sac baa allah ka dhigo yay guusha ku dambaysaa wax kale ma aha guusha waxaa iska leh ninka xoogaa yar ku dara maxaan ku rahaa adkaysiga dalkan idinkaa iska leh meelna uga tegi maysaan cidna u deenbaysaan annagaana laga rabaa inaan difaacanno oo dadka naga dambeeya aan u diyaarinno nolol wanaagsan ma maqlaysaan oo aan nabad keenno soo ballan ilaahay maaha mar kale waa erinaynaa soo maha waxaan ogahay inay baqaayaan taasaan ogahay soo ma fahmin yaa dalkiin idin difaacaya adigu haddaad u dhiman yaa kuu difaacaya dalkaaga annagaa la rabaa dalkan inaan u dhimanno markaan dalkan u dhimanno aan istaajinno oo dalkeena dhisanno oo xooggeena dhisno inaan annaguna meelaha kale adduunkaan ugu tagno afrikada kale inaan caawinno saas ma yeelaynaa soo ballan ilaahay maaha waxaan idinku boorinayaa inaad adkaysataan waa adkaanaynaa insha allah intaan keliya maahee meel kastaan ugu tagaynaa waana jebinaynaa hadday isdhiibaanna waa alxamdulilah waana hubaa inay isdhiibi doonaan ummadda soomaaliyed kulli waa idin soo fiirinayaan waa laydinka sheekeeyaa waxaa la yidhahdaa ciidankii goordan ka yimid oo sabiid qabtay iyagoona cidna uga helin runtii magaalada iyo cid walba waa idinka sheekeeyaan waxaa laydin yaqaanaa geesiyiin waxaa laydin yaqaanaa haliyeeyo yaa laydin yaqaanaa xaqiiqatanna waa inaad tustaan inay arrintaas dhab tahay waxaa weeye waxaad tihiin mustaqbalka waxaad tihiin hoggaanka dalkaad tihiin waxayna ku bilaabataa inaad dalkaaga difaacato soo ma garan saasaa noo ballanna soo maha ilahay hortiis waad difaacanayaan dalkeena soo maaha dhiiggaan u daadinayna soo maaha insha allah hadduu ilahi yirahdo waa mahadsantihiin